inaan aad kuu jeclahay. Waan ogahay inaad waddanka ka dhoofayso. Waxaan kaloon ogahay in reerkiinu kuu doonayaan inay kuu dhisaan wiilkii aad qadada wadaagayseen. Hase ahaatee, waxaan ahay qof kuu boholyoobay oo ilaa xad kuu jecel, balse go'aanka adigaa leh. Hoodo waxay ku ducay hadallada Khaalid iyo kalgacalka uu la hoos joogo. Isla markaa Hoodo kumay degdegin go'aankee. Waxay Khaalid u soo jeedisay in uu sheekada dib u dhigo oo uu ka qayb qaato dalxiiska. Khaalid waxaa qalbigiisa saaqay dareen farxad, wuxuuna oggolaaday in uu dalxiiska ka qayb qaato. Khaalid iyo Hoodo dalxiiskii waa ay ka soo laabteen. Ardaydii oo farxadoodu xad dhaaftay, Khaalid iyo Hoodana dhoolla caddayn isku jaleecayaan ayaa laga soo degay gaari. Ardaydii markay maqashay in Hoodo waddanka ka dhoofayso, waxay abaabuleen xaflad sagootin ah oo lagu macasalaamaynayo Hoodo. Khaalid wuxuu go'aansaday inuu caawa war cad ka soo qaato Hoodo. Aad ayuu u labisan yahay, wuxuu gacanta ku sitaa ubax guduudan iyo hadiyad uu ugu talagalay Hoodo. Huteel ayaa la isugu yimid, ardayduna waxay dhan tahay, Hoodana kama maqna. Laakiin waxaa la sugayaa Khaalid oo ahaa shaqsiga aad loo tago. Cabbaar markii la sugay, aadna loo raagsaday, ayaa lagu tashaday in xafladda la bilaabo waqtiga oo yar awgeed. Hoodo u qaadan waa ayay ku noqotay maqnaanshaha Khaalid, sababtoo ah waxay doonaysay in ay Khaalid go'aan cad ku kala tagaan, oo ay hubsato inuu caashiqu ka dhab yahay, maadaama ay bari 10 subaxnimo diyaar garoobayso kana dhoofayso waddanka. Xafladdii way dhammaatay, waxaana ardaydii si meeqaam sare oo fiican oo qurux badan u sagootiyeen Hoodo, waana lagu kala dareeray xafladdii. Wiil iyo gabadh ardayda ka mid ah ayaa isweydiiyay maqnaanshaha Khaalid, waxayna tageen gurigii Khaalid, balse dadkii guriga joogay waxay yidhaahdeen Khaalid intuu labistay ayuu fiidkii naga baxay. Labadii arday waxay damceen in ay baadi doonaan, laakiin meel ay u dhaqaaqaan ayay garan waayeen. Khaalid cid ka war haysa ma jirto. Qadar baa ku dhacay oo fiidkii isaga oo xafladda ku soo socda ayuu la kulmay 2 nin oo burcad ah oo isku daya in ay gabadh xoogaan. Khaalid damiirkiisa ayaa siin waayay inuu iska dhaafo miskiintan burcaddu heshay, wuxuuna ka damqaday dhawaaqa ka soo baxaya gabadhan oo ah, "Alla walaal iga qabo." Khaalid wuxuu bilaabay inuu difaaco gabadhan. Aad ayay u dagaalameen, laakiin Khaalid waxa madaxa kaga dhufteen dhagax, wuxuuna ku dhacay dhulka, waanu miyir doorsoomay. Burcaddii markay aragtay in aanu far dhaqaajinayn ayay baxsadeen, iyagoo ka baqday in naftuba ka baxdo. Khaalid waxaa halkii ka qaaday niman ay u yeedhay gabadha uu caawi. 3dii habeenimo ayuu indhaha soo kala qaaday Khaalid oo uu soo miro. Waxa isku dayay in uu kaco Khaalid. Kalkaaliyihii dhakhtarka ayaa ku yidhi, "Waa saq dhexe, waanad dhaawacan tahay, intuu waagu ka baryayo ma bixi kartid." 5tii subaxnimo waxaa Khaalid u yimid gabadhii uu darteed halista u galay, oo ay la socdaan dad badan. Markay xaaladdiisa arkeen inuu nool yahay, ayay gabadhii weydiisay Khaalid reerkooda iyo meel lagala xiriiro. Laakiin Khaalid wuxuu gabadhii ka codsaday in uu fariin u dhiibo, fariintaas oo ku socota Hoodo. Way ka aqbashay, waxayna u dhaqaaqday guriga Hoodo oo uu u tilmaamay. Waxay raadisaba goor ah 8dii aroornimo.
ayay aragtay guri baabuur hortaagan yahay oo gaadhiga alaab lagu gurayo. Waxayna weydiisay dadkii gabadh Hoodo laydhaa. Waxaa lagu yidhi gudaha ayay ku jirtaa ee hore u soco. Gabadhii markay gudaha gashay waxay isha ku dhufatay 2 hablood oo wada hadlaya. Mid waxay leedahay ninkaasi waa beenaale oo way cadhaysan tahay. Midda kalena waxay leedahay walaal Hoodo shaydaanka iska naar. Laakiin gabadhii fariinta siday ayaa tidhi idinkoo raalli ah Hoodo waati. Intay Hoodoba soo jeesadeen oo ayay Hoodo tidhi way kan. Gabadhii waxay tidhi isma garanayno, fariin ayaan kuu sida. Hoodo ayaa tidhi ayaa kuu soo dhiibay. Gabadhii ayaa tidhi wiil Khaalid laydhaa ayaa ii soo dhiibay. Hoodo markii horeba way cadhaysnayd. Markii magaciisii maqashayna waxay tidhi ma arki karo mana maqli karo ee u celi fariintiisa. Balse Hoodo saaxiibadeed ayaa tidhi Hoodo waa ku sidee ma adoo wax hubsan ayaad cadhoonaysaa. Hoodo iyadoo cadhaysan ayay saaxiibadeed ka hor akhriday fariintii. Waxaana ku qornayd sida walaal Hoodo haddaan ku calfan waayay waa nasiib ee ducaan kugu ogaa. Hoodo markay kelmaddaasi dhagaheeda ku dhacday ayay qalbiga ka naxday. Daqiiqado markii la aamusnaa ayay gabadhii fariinta siday isku dayday in ay iska noqoto. Laakiin intayna dhaqaaqin ayay dib u soo jeesatay. Waxayna tidhi walaal Hoodo Khaalid iimuu sheegin gurigooda ee kiina ayuunbuu ii tilmaamay. Ma ii tilmaami kartaa si aan dadkooda uga war helaan? Waayo dhakhtarku wuxuu sheegay in qalliin degdeg ah lagu sameynayo. Mar labaad ayay naxday Hoodo. Hadalna wuu ka soo bixi waayay oo shoog ayaa qabsaday. Laakiin Hoodo saaxiibadeed oo iyadana naxsan ayaa tidhi walaal waxa dhacay maad noo sheegtid. Gabadhii waxay uga warrantay sida ay wax kasta u dhaceen iyo xaalku siduu ahaa. Hoodo jacayl oodihiisa wataa dabarka ku soo goostay. Wuxuu beerku hayn waayay waxa la sheegay. Kalgacayl aan yarayn baa ku habsaday. Tin iyo cirib dhidid baa qooyay. Kal iyo laab jireeco jacayl baa isku jibi. Indhahana ilmo aan xad lahayn baa ka soo daadatay. Hoodo iyadoo dhanna eegin ayay dhakhtarka gashay. Waxay aragtay ardaydii jaamacadda oo dhammaan wada jooga oo aad u murugaysan. Waxay istiri malaha wuu dhintay oo qof ay weydiiso ayay garan weyday. Balse Professor jaamacadda dhiga oo la yiraahdo magaciisa Aadan ayaa si degan ula hadlay Hoodo. Wuxuuna u sheegay inuu nool yahay balse qolka qalliinka uu ku jiro. Hoodo iska daa diyaarad iyo dhoof ee nafteedii ayay ilowday. Habaryarteed oo ka daba timid una sida fiisihii iyo baasaboorkiina inta ay ka qaaday ayay horteeda ku googoysay. Nasiib wanaag Khaalid wuu soo kacay. Waxa uu soo galay ardaydii oo dhan. Waxaa ag fadhida hooyadii. Hoodo farxad iyo yididiilo ayaa gashay. Laakiin waxay weyday awood ay qolkii ku gasho. Balse Professor Aadan ayaa niyadda u dhisay oo ka caawiyay in ay maruun indhaheedu qabtaan. Ugu dambeyntii Hoodo iyo Khaalid waxay noqdeen lamaane nolosha qaybsada. Waxa u bilaabantay nolol cusub. Sanad walbana waxay u dalxiisi jireen goobtii la magac baxday dalxiiskii caashiqa. Fadlan subscribe channelka oo naga mid noqo. Like muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin. Commentina hoosta nooga soo dhig. Waa mahadsantihiin.